waxaa weli socda xifaaltanka weyn ee u dhaxeeya Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi xitaa haddii ay ka tageen qaaradda Yurub. haddii uu Ronaldo gool uu dhaliyo isla markaana uu sameeyo taariikh, Lionel Messi ayaan meesha ka marnayn. لاعبka kooxda Inter Miami Lionel Messi ayaana xalay waxa uu dhaliyay saddexdiisii tobanaad ee caalami ah, iyadoo xulka qaranka Argentina xalay 6 gool iyo eber uu kaga adkaaday xulka qaranka Bolivia kulan qaybka tartanka sareebka koobka adduunka 2026. 32 sano jirka weerarka uga ciyaara Inter Miami ayaa haatan waxa uu la sameeyay xidiga Portugal ee Cristiano Ronaldo oo saddexleydii ugu badnaa ka dhaliyay kubadda cagta caalamiga ah ee ragga. runtii aad ayay u fiican tahay inaan imaado halkan si aan u dareemo kalgacaylka dadka, waxay ii dhaqaajisay sida ay u qaylinayaan magacayga, ayuu yiri Messi ciyaarta kadib. tani waxa ay ii kaxaynaysaa anigoo ku raaxaysanaya inaan ku faraxsanahay meesha aan joogo haatan. inkastoo da'deedu ay weyn tahay, haddana waxaan dareemayaa inaan ahay sida caruur oo kale, sababtoo ah waxaan ku qanacsanahay kooxdan ilaa inta aan dareemayo iyo wanaag oo aan sii wadi karayo qaabkan aan rabo. waan ku raaxaysan doonaa kubadda cagta ayuu hadalkiisii raaciyay laacibka kooxda Inter Miami ee Lionel Messi oo kaliya kulankiisii labaad u saftay Argentina tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray Copa America bishii July. waxa uu ka faa'iideystay qalad dhanka daafaca isla markaana uu ka dhiibay gool xulkiisa qaranka Argentina kulankii xalay. Messi ayaa u dhaliyay Argentina 112 gool 189 kulan oo u saftay, kaliya Cristiano Ronaldo oo 133 gool dhaliyay ayaana ka badan marka loo eego ciyaaraha caalamiga ah goolasha loo dhaliyo. Lionel Messi ayaa lagu diriyaa inuu yahay ciiraankii ugu weynaa ee abid nasiib u yeeshay inuu markhaati ka noqdo isagoo qoob qaadaya kadib markii uu rikooro uu jabiyay laacibka xulka qaranka Argentina iyo kooxda kubadda cagta Inter Miami ee lagu magacaabo Lionel Messi. natiijo ahaan waxaa jira wax yar oo aan la garanaynin oo ku saabsan superstarka kubadda cagta, iyadoo dhaqdhaqaaq kasta oo uu la kulmay taageero weyn iyo bogaadin uga timid guudooyinka taageerayaasha adduunka uu ku leeyahay laacibka kooxda kubadda cagta Inter Miami ee Lionel Messi. si kastaba ahaatee, waxaa laga yaabaa inay jiraan hal ama laba shay oo aadan ka warqabin garaadka Argentina, kaasoo ka yaabiyay taageerayaasha kubadda cagta in ka badan 20 sanadood oo ku jiro ciyaarista kubadda cagta. haddaba waxaa jira xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan ciyaaryahanka loo tixgeliyo inuu yahay midka ugu fiican kubadda cagta waqti xaadirkan. Messi waxa uu ku guuleystay 8 jeer jaayisada caanka ah ee Ballon d'Or, waana isku darka intay qaadeen haliyeeyo caanka ah kubadda cagta oo horey u soo maray sida Zinedine Zidane, George Best, Ruud Gullit, Ronaldinho, Roberto Baggio, Lautaro Martinez, Bobby Charlton iyo Eusebio oo isku dar iyagu ku guuleystay tirada uu haatan haysto laacibka reer Argentina Lionel Messi jaayisada caanka ah ee Ballon d'Or. Messi ayaa sanadkii 2012 waxa uu dhaliyay 91 gool oo u dhaliyay koox iyo watan, waxaana ay la micno tahay inuu dhaafay goolasha kooxaha Manchester United, Paris Saint-Germain iyo Chelsea muddo 12 bilood isku dar ay dhaliyeen ilaa 91 gool. Messi waxa uu maareeyay guushii ka dhanka ahayd kulankii dhexmaray kooxda kubadda cagta Inter Miami iyo New York Red Bull ee dhacay 4 Maajo sanadkan 2024. intii uu joogay Lionel Messi kooxda kubadda cagta Barcelona waxa uu ku guuleystay 34 koob, 10 kamid ah waxay ahaayeen horyaalka waddanka Spain ee La Liga, 7 kamid ah waxa ay ahaayeen Copa del Rey, halka 3 jeer uu la qaaday tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Lionel Messi ayaana waxa uu yahay mid kale oo isagu aad u la xifaaltama Cristiano Ronaldo markay ay timaado waxa lagu qabtay kubadda cagta, isagoo xalayna barbareeyay markii tobanaad inuu ka dhaliyo saddexley tartanka caalamiga ah. Ronaldo ayaana hore u sameeyay. Messi iyo Cristiano Ronaldo oo weli ka maqan qaaradda Yurub ayaa waxay yihiin kuwo weli ku hartamaya rikoorooyinka laga dhigayo kubadda cagta, waxaana waqti xaadirkan ay yihiin kuwa ugu sareeya marka lagu eego ciyaarista kubadda cagta, iyadoo Messi iyo Ronaldo ay waqtiyo qurux badan ay ku soo qaateen kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona oo ay hore ugu soo ciyaareen.